soo dhawaada waxbaa idii sheegayaa waxaan keligii iska ogaaday baa idii sheegayaa maanta runtii keligii baa iska gartay dadku muddo dheer bay garan waayaan anna waan ku wareeray wadaadada saa og tahay ugu caansan soomaalida badankooda waxay joogaan wadamo gaalo sheekh xasaani xuseen sheekh shibili sheekh ninka la yiraahdo sheekh umal dhammaan waxay joogaan wadan gaalo waxayna u hoggaansamaan sharciyada gaalada ah bay u hoggaansamaan dhammaantood sharciga gaalada u hoggaansamaan sheekh mustafa xaaji ismaaciil asagoo reer norweyn buu ahaa wadamo gaaluu jooga baasboor wuxuu haystaa baasboorada gaalada waadada majoritiga badankooda sheekh abudalxa baasboor gaalo haystaa wadamada gaaladu jooga gaaladu wuxuu doortaa oo u codeeyaa oo dhammaantood ay u codeeyaan madaxda gaalada oo ilaahay aan rumaysnayn waxayna u hoggaansamaan sharciyada gaalada hadday shaqaystaanna badankooda ma shaqeeyaan oo lacag waxay ka qaataan haweenkee shaqooyinka ninka shirkadda madaxda ah bay u hoggaansan yihiin haddaba ayagoo wadamo gaalo jooga oo sharciyada gaalada u hoggaansan haddana markii la dhaho soomaaliya waxaa looga baahan yahay shuruuc in haweenka difaaca laga sameeyo ama kufsiga ama xeerar wadaadadu ay kasoo horjeestaan halkay ogol yihiin wadamada gaalada madaxdooda ay doortaan shuruucda meeshaas laga keenay ay aqbalaan oo ay raalli ka yihiin dadka badankoodana soomaaliya maanta wadamo gaalo ay joogaanba marka anu waxaan waxay ila tahay waxaa loo baahan yahay markaan qof gaal ah oo soomaali ah oo laakiin diinta islaamka aan rumaysnayn inuu madax ka noqdo inuu wasiirada inay gaalo u badnaadaan wadanka gaalo way joogtaa qof kasta wuu ogyahay oo muslimiin aan ahayn oo caad u cadaysta madaxweynuhu inuu gaalo ahaado ra-iisul wasaare inuu yahay qof gaalo ilaahay aan rumaysnayn maxaa la dhahaa kan baarlamaanka hogaamiya maxaa la dhahaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu qof gaala yahay baarlamaanka badankooda inay niman gaalaa yihiin oo ilaahay aan rumaysnayn si sharciyo iyo xaquuq ay haweenku helaan waa wadaadaduna way u hoggaansami doonaan wadaadadu waxay hortaagan yihiin qof muslin ah oo qaylaa iga soo dhex gashay igana lahaada wiilkii qaylinaya ila hadlaya kor ila hadlay sawaadimiye codka marka waxa weeye mataqaanaa marka dadka dhan waa muslimiin gabdhaha iyo la badbaadinaya badankooda muslimiin waaye majoritiga Soomaaliya dadka jooga dad islaam ah muslimiin baa nahay waxaan fahmay maanta aan gartay wadaadadu gaalada u hoggaansamaan dhibaato gaala ma qabaan wadamada gaalada ay maal gashteen way ka shaqaystaan kuwa tagaasida ka shaqeeya qamriga ee qaadaay iyo gaalada isu shuminayso islaaxaysa waxaasoo dhan dhib kuma qabaan gabadha Soomaaliyeed inay xuquuq hesho oo sharci hesho buu ku hortaagan wuxuuna hortaagaya madaxdii islaamka ahaa oo la rabay inay yeelaan sababtii hortaagan waxay sugayaan dad gaalo ah oo wadanka hogaamiya oo hoggaansamaan dhibaatada waxay ka haysaa qof muslim inay arkaan marka laakiin ma dhihi karaan waa inay dhahaan may waan diidanaa sharcigaas waxaan loo baahan yahay marka dad aan ilaahay rumaysnayn rasuulka rumaysnayn gaalaha kufaariin ah inay hoggaanka qabtaan si wadaadadu ay u yeelaan ilaan wadaadku ma ogola qof muslin ah xasan sheekh waa nin muslina wuu tukadaa ka farac muslin ahaa in uu sharciyo wadan ka sameeya baarlamaanka gudoomiye baarlamaanka waa niman islaam ah ma ogola inay sharciyo helaan marka waa inay 50% dad gaalo ah ee baarlamaanka hogaamiyaan si shuruucda ay dadku u badbaadaan ilaa wadaadadu intay ka carareen wadankii oo guryo ka samaysneen wadamo niman gaala iyo naaga gaalaha hogaamiya bay ku hoos nool yihiin sheekh umal haddii gabadhiisa la kufsado maantay gabadhiisa haddii la kufsado ma dhahayo shareecadan ku xukumayaa oo masaajidka ma fariisan doono waxaa lagu xukumayaa xeerka gaalada ee ka jira Kenya ee ay dejiyeen baarlamaanka iyo wasiirada Kenya ee qoran ee kufsiga baa lagu qaadayaa haddii sheekh xasaan xuseen gabadhiisa gaalo kufsato sidoo kale waxaa lagu qaadayaa xeerka gaalada isla ayaga haddii xaasaskooda ay u gartaan inay galmaysa raalli ahayn ku samayn waxaa lagu qaadayaa xeerarkaas gabdhoodu way dacweynayaan shareeco laguma qaadayo xeerka wadaadaduna raalli bay ka yihiin in gabdhahooda xeerka gaalada ay samaysato Kenyaanka ama kuwa Ethiopia jooga ama kuwa Norway iyo Sweden jooga in lagu qaado xeerarkooda way ku qasban yihiin haddaba markaa
haddii gabdhahooda ogol yihiin iyo xaasaskooda ogol yihiin in xeerarka gaalada caruurtooda ay badbaadiso caruurta kaloo soomaaliyeed waxay u dul taagan yihiin oo u diidan yihiin inay xeer iyo xuquuq ay helaan waxaa weeye baarlamaanka baa muslimiin ah badankooda majority inta la ogyahay inti kuwa sir ah waa gooni madaxweynuhuna waa nin muslim ah marka waxay rabaan qof gaala bay sugayaan oo ay adeecaan siday ilaa niman gaalaha bay adeecaan way maal gashteen wadamada gaalada u khidmeeyaan wadamada gaalada ay maqlaan maxay ku diidan yihiin xeer difaacaya gabdhaha in loo sameeyo ugu hayaan shareecada sacuudi ma joogaan wadan shareeco looga dhaqmo ma joogaan umana haajirin ma ogtihiin marka wadaada waa nifaana sheekadiina marka waxaa la raadinayaa madaxweyneyaal gaala ah insha allah ilaahay waanu fududeyn doona ilaahay dhabarka ummadda ha kasoo dhex saaro kuwo gaala ah si dadku badbaadiya ilaa wadaadada way diideen islaam muslimiin ma rabaan adunkuna hoos aamiin ka dhaha ilaa hadda waan idin fahmay anaa codkiina gudbinayo qof kastoo arrintan ila fahmay ha gudbi walaal fideogan wuxuu kugu yahay wadaadada naftirkooda u geey maxaad qof gaala ugu hogaansateen soo gaala ma rabtaan oo qofka muslimka uga soo horjeesteen dowladdii cabdullaahi yusufiyey sheekh maxaa la dhahaa umul wuu u fadwooday wuxuu yidhi waana gaalo in la adeeco asagu saas markuu dhahayay madaxweynaha gaalka ee u talaya kenya uhuru kii ka horreeyey uhuru kenyatta kii ka horreeyey magaciisa ii sheega ayuu adeecayay oo hoos fadhiyey oo canshuurta buu bixinayay oo wuxuu siinayay masaajidda lacagta kasoo gasho iyo dukaamada wadamo gaalaha buu siinayay isla madaxweynihii soomaaliya wuxuu rabay in la dilo asiguna qof gaal oo adeecaya dadku ma dhahayaan oo gaal baa adeecaysaa shiiqo waayo aduu u samaynaysa dhammaantood saas bay ahaayeen marka waxay anu haddaan fahmay gaalay rabaane waa isla sheekada waa sas sirtaas ilaahay baa i dareensiiyey inaa maanta fahmo oo garto garanaysaa waayo gabdhihii way dhiban yihiin sharci kastoo la keeno waxaa la leeyahay waa sharci gaalo wadaadada dadka dhanna wadamo gaalay joogaan shuruucda gaalada loo hogaansamaa madaxweyne gaalaaba la doortaa qofka soomaaliga wax lagu haysto waa islaamnimadiisa iyo diintiisa bes waxaa la rabaa inuu wadan gaalo ka cararo oo wadanka soomaaliga ka cararo oo gabdhihii ay ka cararaan oo ay waayaan xeerar iyo xukumo adag oo lagu difaacayo cardigooda iyo sharaftooda si loo helo walaalayaal iska baarbaara qof aan muslim ahayn oo madaxda inii qabta sanadka dambe waa ogtihiin madaxda soomaalida sirtaana de waa ogaateene dad badanoo hoosta gaale kaabaa idinku jire dee caddeeya si ay wadaadadu inii adeecaan oo caddaysta maaragta sheega soo baxa doorashada usoo baxa waa kaasaa markuu dhan yahay insha allah